Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Halkani waa wadani podcast. Waa anigoo ah Abwaan Saki. Waxaa kaloo meesha maanta nagula jirtaa walaashayna kuwo kusoo dhawaada mudanayaal iyo marweyn dhammaan dadweynaha ku dhaqan daafaha adduunka meel walba aad joogtaan. Soo dhawaada soo dhawow naqo. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعندك سلام يا أبو سكي هذيك إيو تاجر يا شادة إيو أنت ندرني. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. maanta waxaan ka hadlaynaa arrin aad iyo aad u muhiim ah. maskaxdeedana maasha Allah naqo ka imaatay arrintaas oo ah sidee baan dhalinyarta Soomaaliyeed ugu gubaabinaa wadankooda nimcada taala iyo sidii loola soo bixi lahaa. bal noogu bilow. ما شاء الله وأرن عن مدبضا سويديني أو معرفة عن مودنا إني دلنا وجود جرتو أنا إيو أمة الصوماليات با سيدا أيام معرفة أمة دليرتين أو جوابين كرنا وحصل تربطنا أي dadku inta badan wuxuu ka fikiraa sakiyo in dadku ay marka hore lacag helaan lacagta wax badan lagu soo iibsado oo ay maaragtay lacagtu furaha tahay laakiin waxaa ka horeysa qofka in uu tacabka marka hore tacabka lacagta ka horeeya inuu qofka maaragtay marka hore wax beerto tabcado kadib bay lacagtu timaadaa lacagta iskama soo degto iyadoo mushqad ku xiran cirka kama soo degto waa la shaqaystaa waa lagu dadaalaa waa dad baa sameeya waxaana laga soo bilaabaa nolosha sideedaba hoosta oo xagga sare lagu gaaraa markaas aandaa su-aashaadi dib ugu soo noqdo dhalinyarteena waxa ay ku heli karaan in ay uga baxaan ciil iyo baryo adduunka loo soo tuugsado iyo maaragtay wax walba waxay uga bixi karaan iyaga oo beerahooda beerta kalluunkooda la soo baxa dakhligooda wadankooda xoogooda geliya waayo qofka bini'aadanka hadduu waxuu doono uu ku siiyo gacantaadun baa biyo looga haraad baxaa bay Soomaalida dhahaan waxa la siiyey waxa ku soo gaaraya waa 10% baa ku soo gaaraya haddii dad ilaahay laga baqo ay ku soo dhiibaan inta waxa maaragtay wax badan ba 50% waxay u go'ayaan soo safritaanka iyo maaragtay soo dirka iyo gawaadhida lagu soo qaadayo sadankana inta qabqablayaasha oo dee maaragtay siyaasiga ah baa cunaya tobanka kan kuu soo gudbinaya adigu waxa kaa soo gaaraa waa waxaan waxba ahayn wax lagu soo dhiibay lagu soo maaragtay dawaray muhiimadda waa in beeraheena la fashaa marka beeraha sidee loo falan karaa ama dhaqaale loo gelin karaa dawladdu wax inay ka qaadato miyaa shacabku inay wax ka qaataan sidaa hadda aad tiri waxa weeye muxuu ahaa waxa aniga xitaa niyaddeeda waxaa ku jirta lacag haddaynan dadku ayna haysan sidee wax u falan karaan taa maaha waxay noqonaysaa wadamada dariskeena fiiri Kenya fiiri Ethiopia fiiri labada wadan labada dhinac naga kala xiga de waa kaa xoog weeye waa kaa kuskuusan yihiin waa kaa kor macaan yihiin markay jidka marayaan waxay aaminsan yihiin waa wadani labada wadan ee dhinacyada naga xiga way naga wadansan yihiin waxay aaminsan yihiin kooda intuu jaamacad soo dhameeyo sabuul gadaya ninka Kenyaanka ah wadan kale way ku yar yihiin ilaa iyo dan iyo duruuf mooyaane way aad ugu yar yihiin dadka inta badan soo baxa ma aha marka waxay beertaan beerahay beertaan wax walba oo aan annaga haysano oon soo iibsano baradhada jaadka basasha yaanyada barbarooni wax walba wadamada dariskaana looga keena way yar yihiin beeraha Soomaaliya inta badan koonfurta ma soo dhaafaanba barigan iyo waqooyigan meelahan Ethiopia looga keena marka waron
marka ma laga yaabaa xayiraad fara badan inay keentay muxuu ahaa isbaarooyin fara badan oo waddanka taala meel walbaba isbaarooyin baa taala tuulo walbaba meel walbaba isbaaraa taala labo se waxaa jira caqaladahaas oo ay ka mid tahay hadda dowladahan kale maraykanka iyo maraykanka ha u badnaadaanbe cuntooyinkooda 10 sano taale surpluska ah marka ay iyaga dadkooda siin waayaan xitaa ay siin waayaan muxuu ahaa fardahooda waxay u iibgeeyaan ama ay yiraahdaan mucaawina Soomaaliya ugu geenaynaa laakiin mucaawinadaas oo ay lugaha ka jarayso waxaan xusuusada dadka ka sheekeynaya gobolada waqooyi waagi dagaalada waxaasaa loo keeni jiray qamadigaas fardaha maraykanka ka dhacday calooshaa weynaan jirta urweynaad bay qaadi jireen waxa oodaha waa laga ilaalin jiray ilmaha yari waxaa laga baqi jiray durto inuu qarxo laada waagi dadkii waa soo dhoofo qof walba qofkiisa u maqan oo wax soo siinaya laakiin marka hore zero baa laga bilaabay banaa in qamadiga la cuno waayo ma jirin income kale ma jirin oo ay awoowo kuusoo maqnaa ma jirin dadkii qamadida markay soo qaxeen cuni jireen dabeedna caruurta waxaa la waa laga ilaalin jiray oodaha si ay caloosha u dilaacin sida buufinka la ilaalin jiray waa xasuustaa xeryaha qaxootiga Soomaaliya muxuu ahaa Dadaab iyo muxuu ahaa Kakuma iyo may waxaan ka hadlayaa ID 1968 gobolada waqooyi marka laga qaxay taas iyo Kakumana sidoo kale way dhacday iyada laftigeeda sidee looga badbaadin karaa waxaa looga badbaadi karaa ilmaha dugsiyada casharada dugsiyada in lagu soo daro maada ah waxqabadka sidee wax u qabsan karnaa maada ah sidee wax u beeran karnaa maada ilmaha yar markuu yar yahay ilaa iyo dugsiga uu ka gaarayo sare uu ka wax baranayo loogu sheegi karo inuu kaga maarmi karo baahi walba isaga oo ilaaliya wax walba oo maaragtay waddanka wax soo saaristiisa u dhimaya in dhirta la ilaaliyo in xayawaanka waddanka aan la dilin oo la ilaaliyo in beeraha la fasho siyaad bar wax qabsadu dhihi jiray siyaad bar Allah ya raxme wuxuu dhihi jiray wax soo saar beeraha fasha dadku uu mashruucyo u kala diri jiray marka waxaan aniga aaminsanahay in caruurta loogu daro maado ah oo sida aan waddankeena wax ogala soo bixi lahayd ama kalluun ha noqoto ama ha noqoto beero in maadadaas lagu soo daro ilmaha yar la kobciyo niyadiisa loo dhiso looga sheekeeyo taariikhda Soomaaliya way yarta xitaa iskoolaadka loogama sheekeeyo taariikhda Soomaaliya sidee baa markaa lagu dhisi karaa ilmahaas inta uu noqon gaarin looguna abuuri karaa wadaninimo iyo wadamada hadda aan joogno kala waad aragtay galaaska 1 ilaa galaaska 7 caruurta waxa loo dhigaa maaha tacliin waxaa looga sheekeeyaa wuxuu qabtay in hebel oo waddankan u dhashay waxa uu sameeyey wuxuu soo kordhiyey sidee horumarkan lagu gaaray boqorka waddanka muxuu bixiyaa history badan oo ina beentaa ina runtaa baa la iskugu daraa oo maaragtay qofkii niyadda loogu dhisaayo inuu dee in libaxsan ka taabtay yahay markuu galaaska 7 dhameeyo wuxuu aaminsan yahay inuu qof walba ka sareeyo markii waa lagu soo akhriyay galaaskii 1 ilaa 7 ba waxa lagu soo akhrinayay meaningkaas marka ilmaheena annaga waa ka faaro Soomaaliya hadda tira ma taqaana ayaa soo halgamay maba yaqaanba looguma wada taariikhdaba maba isku haystaanba dad wax halgamay iyo dad wax qabsaday inay yihiin ilmaha marka taariikhda in Soomaaliya loo dhigo taariikhdooda taariikhda Afrika loo dhigo taariikhda maaragtay meeshii cunugu waa inuu isbartaa horta xaguu ka soo jeedaa in looga sheekeeyo 20kii sano Maxamed Siyaad Barre uu waddanka haystay sidii loo kala dambeyn jiray sidii wax u soo qabsan jirnay in waddan dhisan baan ahay in taariikhda lagu soo daro Sayid Cabdulla Xasan oo kale niman badan oo maaragtay anigu xitaa hadda aqoon badan uma leeyahay barkee maana soo dhigan looguma dhigi jirin ba iskoolaadka inta badan marka inaga hadii anaga nala fahansiin waayay inaguna caruurteena sidee baan u gaarsiin karnaa miyaanan ahayn dhibaatooyin jira hadii anaga aan waxba ka ogeyn dadkii kalena ay waxba ka ogeyn waalidiintii Soomaaliyeed sidee caruurtooda u gaarsiin karaan wallahi wax walba ka soo daah ma laha salaad walba siday ku qabsataa loo tukadaa
haye haddaa weyday oo maaragtay dhibkaas annaga nagu dhacay dee waxaan ku haye dadaalaynaa un inaan cunugeena waayin ama cunuga Ah, ayayda unaa oo awooga u noqon marka indhaha ma wada tirayo haddaa annagu weyno jaaniskaas dee carruurteena uga faa'iidno oo carruurteena u dhigno waa in qofka soomaaliyeed soomaalinimadiisa loo dhigaa waa in magacyadeeni loo dhigaa oo magacyadii soomaali dib loo soo celiyaa dhaqankeeni dib loo soo celiyaa carabska yeelyeelka waa inaan iska daynaa iyo salmaan maaragtay magacyada lala baxayo iyo maaragtay inaan iska dayno muhiim bay tahay iyo akhi iyo ukhdiga la isugu yeedhaya de islaamo badan ba akhi iyo ukhi waxay moodaan inay diinta ku jirto kitaabka qoray waa abooway amaayo aamina muuse weliyaa waxay tiri abooway amaayo ma iska dhahda akhi iyo ukhti intaas leego marka in qofka uu ku faano annaga hadda waddankan joogna norway hadda waxay soo saareen ninoshka wax la yidhaahdo oo maaragtay erayadii ingiriiska laga keenay iyo isku dardarka ay jacburka ahaa bay rabaan in norwegian u wada bedelaan waxyaaba badan oo dee wadamadu waa isku wada af moogtahay inta badan soomaalida waxaa ku jirta 100 af hadda talaagad fiirso waa carab furniture haddaa fiirsina waa talyaani annaga maba haysanaba soomaali ahaan maba ku qabnaba malaynaya iyo qaboojiye in la dhaha ma aha wax noocaas haddaa dee u naqaan marka iyaga waxay samaynayaan qaboojiyada dee wuxuu noqon karaa wax badan baa qaboojin noqon kara marka iyaga waxay samaynayaan hadda si luuqadda iyaga bas luuqad iyaga u gooni ah oo kale ay sameeyaan marka muhiimka waxa weeye inaan annaga carruurteeda taariikhda barno wax soo saarka barno dugsiyada lagu daro maadooyinkaas marka carruurta inta 5 sano ama 10 sano ugu horeeya wixii lagu kordhiyo unbay ma waxaad oran lahayd inay la baro inay qashinka la qaado waddankooda adeeg loogu sameeyo iskaa wax u qabso carruurta xitaa loo baro muxuu ahaa ma garanaysaa si ay dee society as a society maskaxdooda loogu dhiso oo la yidhaahdo waxaanaad u qaban kartaa waddankaaga inaga waddankiibaan wax ka sugaynaa inagoo dhan ba waxbaan ka wada sugaynaa annaga madaxweynahan baa wax ka sugnaa dhibkana haysta hadda kuu sheega galaaska 1 ilaa iyo 7 waxaa lagu baraa kala dambeynta bulshada qaybta qofka bulshada qaybta uu ka leeyahay dhinaca uu qaabilsan yahay dadku wuu kala sarreeyaa level buu kala leeyahay wadamadu ka kala yimid nin walba meeshuu kusoo koray wuu yaqaanaa qof walba waxa lagu baraa kala dambeynta bulshada xaguu ka soo jeedaa siduu waddanka wax ugu qaban karaa taariikhdiisu maxay ahayd taariikhdiisu maxay ahayd xaguu ka soo jeedaa goormuu xornimada qaateen goormay wadamada ay xornimada ka qaateen waxyaabo badan baa lagu baraa in ilmaha yar lasoo dhiso akhlaaqiya lasoo dhiso inaga hadda Soomaaliya xitaa dad fara badan baa waxay u maleeyaan Soomaaliya Tolstoy inay tahay heesta calanka waana de waxa ugu yar qofka inuu garan waayo heesta calankiisa wallahi waxaan jecelahay inaan dhegeysto cawke iyo allah yaa raxmi raaximiin aamanu soo weheliye iyo baalkan ninkan kale ka hadlay BBC da maxaa la dhahaa adiga dad badan waxa kaliya oon ka dhegeystaana Catosh may Catosh ma aha nin kale weeye kan anyway waxa kaliya oon ka dhegeystaa يعني dowladnimadii maamo Maryam Mursal oo kale يعني dowladnimadii Nakruum oo kale waxay ku xasuusinayaan Qamar Cabdullaahi Harago waxay ku xasuusinayaan maaragtay dowladnimadeeni markay ka sheekeynayaan hiba nuur waa yaabaysaa wal markay ka hadlayaan macaanka ay leedahay waxaan soo marnay kala dambeyntii aan soo marnay iyo isxushmeyntii xitaa qof markuu hadda i weydiiyo ilaa Soomaali waxaan dhahaa 1980 ku dhufo YouTube-ka halkaas ka dhigayso marka 1980 wixii ka dambeeyay dagaaladii wixii ka dambeeyay ma dhihi kartid moogta wax shoon marka caruurteena lagu baro caruurteena in lagu baro qayb waxaan rabaa inaan dadka u sheego qaybta line-kana uu furan yahay labada number meesha ku qoran waad nagala soo hadli kartaan hadda iyo mustaqbalkaba
waana ka qayb qaadan kartaa hadda iyo mustaqbalkaba showga marka caruurteena in la baro raalli ahow waxaad maraysaa caruurteen in maadooyinkaas loogu soo daro aan dhalinyarada iska dhisno waddanka inay wax ka qabsan karaan cunuga yaree 20 jirka soo tahriibay ee liibiya soo galaya liibiyaanka qabsanayaan ee labada gacmood iyo labada lugood laga soo curyaaminayo isagoo bahdilan oo curyaana Yurub soo galaayo ee haddana qaxoonti noqonaaya ee haddana sharciga loo diidaa ee haddana stresska iyo ku furmaaya ee haddana waalana waxaasoo dhan maxaan kaga badbaadi karnaa wadaninimo iyo waddankeenu aamino okay lacagtuna waxay ku jirtaa ciidda hoosteeda lacagtu cirka kama soo baxdo beeraha aan falano halkaasay ku jirtaa ee aan kala soo baxno okay insha Allah marka waxaasoo dhibaataa waxay ku imaanaysaa inagoo aanan aaminsanayn waddankeena sidaan ognahay waxaa jirta waddankeenu waxay dadku inta badanna aaminsan yihiin kuraasi lagu wada fadhiisto dadkii kuraasi baa ka wada orday marka shaqooyinka caadiga ah in lagu booriyo dadka la maalgeliyo la baro harqaamo inta loo soo iibiyo dadka la baro xitaa sida maryaha loo tasho waxyaalahaasoo kalaa laga bilaabi karaa inagoo dhanna waxaan ka wada simannahay in la toosiyo dadka Soomaaliyeed teeda kale in lagu taageero qof walba fikradiisa annaga waxa ina dilay qof walba waxa negative-keeni baa batay qof baa wax sameynaya waxa la oranaya waxaan waa khalad saansan in qof walba waxa uu la yimaado lagu taageero lagu xushmeeyo xisaabtiisa Ilaahay baa u haya wixii akhlaaq xumada ka reeban baan ka hadlayaa in aan dadka la faragelin oo qof walba meeshiisa lagu xushmeeyo taas oo lagu kala dambeynta adduunkan horumar waxay ku gaareen kala dambeyn iyo isxushmeyn waayo qofkii haddaad cuuda qabatayso oo dhuunta qabato isna khaladkii khalad la eg buu sameynayaa berito dee meesha waa ha wareegta garaanta waa ila meeraysay waxaa ka baqayaa showga inaan bixino ila meerayso war ila meerayso gabadhaas maxay ahayd magaceeda ما شاء الله بهيد بس هذا القفوي ولا ميريس وعشان كجرنا سومالي وعشان كجرنا ولينا كمان بحين وين كم ميريسنا ولي marka waxaan u baahannahay marka cuntooyinka hadda Mareykanka surplus ka ah muxuu ahaa muddo fara badan taalay ay u maleeyaan inay dhacday waxay wadanka ku soo celiyaan marka ay beeraha soo go'ayaan maxaad ka qabtaa taas maxaa laga sameeyaa maxaan u baahannahay markaas oo kale horta anaga wixii dibadda ka imaado waa qaaliba haday bisad yar dibadda laga soo diro xalway kan dibadda ka yimid waa shay dibadda ka yimid problemka aan qabnaba wixii dibadda wixii ka qaalisay wixii wadanka haye maba aaminsaninba waxa wadankeena ka quality fiican waxa Mareykan yaala haye marka natural qudaar ah waa natural qudaar ku baxaysa waa wax maaragtay maxaa tiri marka waxaad oran lahayd ha lagu daro taxeska muxuu ahaa wadamadan aan hadda joogno tax fara badan baa laga qaadaa si loo kobciyo ma garanaysaa local dadka beeraha wasaarad caafimaad oo kale inta la sameeyo in lala dagaalamo xilliga la keenayo horta kow xilliga beeraha soo go'ayaan in waxba la keeninba oo wadanka dakhligiisa uu ku filaado in loo sameeyo dad experience leh oo caafimaadka ah oo wixii baara infectiga uu ku keeni karo bulshada iyo bulshada la sumeyn maaye dad baa nool oo dad baa meesha degan oo ma qasaare ka soo gaarayaayo dawooyin baa qarash ka badan baa baxaya galeyda ay wadaan Mareykanka marka in loo sameeyo dad expert cuntada expire-kooda fiiriya quality-ga cuntada fiiriya ma noo qalantaa cunto dad la siin kara ma tahay waa maya waa haa haddii haa tahay dee dadku beero badan oo dee wadan walba oo xitaa taajiro wax waa la soo dhoofiyaa laakiin cuntada quality-geeda waa inay tahay cunto u qalanta dadka waa cunto bila'aadan u qalanta inay tahay wixii haddaan bila'aadanba u qalnayn thank you Mareykan meeshiisa ku haysto xaquba hadduu qashankaaga hayso ilaa space buu ka qaadanayaa taasna waxay keenaysaa taas xitaa waxay halaynaysaa ma garanaysaa waqtiyada ay keenaan ay ku soo beegaan ba waxay tahay waqtiyada ay Soomaaliya beeraha ka soo go'ayaan taasoo niyad jab fara badan ku keenaysa dadka beeralayda ah ee Soomaalida ee degan wadanka Soomaaliya taasoo kaliya caqaladaasoo kaliya ma haysatee waxa haysata
hadda khudaarta iyo muxuu ahaa waxa fara badan ee wadanka Soomaaliya ka baxa waxay ka baxaan inta ugu badan waxay ka baxaan gobolka Hiiraan shabeellada hoose shabeellada dhexe Banaadir muxuu ahaa dee dhulka koonfureed inbuu ka baxaa inta badan wax maadaama ay iyagu ay cunto u soo baxdo jidkii kale ilaa waqooyiga ilaa bariga ilaa gobolada dhexe oo dhanna ay dad fara badan ay xidheen oo gaariga xamuulka ah ee ka baxaya wadamada ee meeshaas ka soo baxaya uu ku tegaya lacag fara badan lacagtii kor u qaadaya miyaanan ahayn jidadkaas inay dadka Soomaalida loo dhiso si ay wadanku intuu isku furmo dee khudaartii baa xitaa dhulka u dhici lahayd dadkii khasaaro badan baa imanaya waayo khudaartii bay qurmaysaa waxa muddo badan sii ooli kara ma aha waa wax muddadeeda ka cayimayn tahay wadankii haddana wada environmentkiisa aad u kulul weeye oo wixii kadib isku 5 kartoomo ku jiraan way urayaan oo markiiba de kuleelkii iyo wixii baa isbedelaya laamiga muhiim bay horta wadooyinka muhiim bay u tahay xitaa khudaarta kaliya ma ahayd dadkii baa kala gooshi lahaa waxaa yaraan lahaa isbaarooyinka wadada hadday qurux badan too dhisan tahay isbaarooyinkana dadku waxay dee ninkii irsaaqadiisa halkaas bay ka gashay marka wadooyinka muhiim bay u tahay khudaarta ka sokow xitaa dadka muhiim u tahay wadooyinka in la dhiso teeda kale waxaan aaminsanahay qolo walba ha beerato jaadka xitaa aan soo iibsanayna Kenya iyo Ethiopia la beerto wadanka lagu beerto waan beeran karnaa Australia maxaa kaga duwan Australia jaada baxee wax looga maarmo ha la beerto wadankeed waayo lacagteena dakhligeena ugu badan wuxuu galaa maandooriyahaas dadkiina kama maarmo oo wadamadan dee horumar haddii la dhoo qabriga lidinka xiraaya dowladda dhanba waa lagu mudaharaada qofku u baahan yahay wuxuu ku enjoy garay marka beerta soo gurataanna ya inaan libaax baad arkaysaa maraykanka jooga afriku ka qaatee waa la isku noolyahay warkood beerta jaadkana hala beerto cuntada hala beerto wax walba hala qabsado bari iyo galmani xitaa koonfur ka sugaan ma aha waqooyi iyo bari qudaar waa inay beertaan ma rabaan dadkii wax beertaan laakiin meelahay webiyada maraan wadan walba waxbuu ku fiican yahay naqoy hadda anaga grapeska ka baxa California na loo keenaa Minnesota hadaan deganahay marka waxa weeye waa la isku wada baahan yahay kan hadda berbera meesha leedahay port weyn bay leedahay oo boorarka ugu waaweyn ee Soomaaliya ka mid ah wax ka weyn ba aanay jirin waxay laga soo dega halkana ka munaafacan bariga waxay leedahay muxuu ahaa waxyaalo fara badan oo muxuu ahaa fooxa iyo waxyaalahaas oo kale kuwaas iyaga hadhoofiyaan iyo waxyaalahaas oo kale marka qof walba si u share gareeyo adigu kan ila share garay anigana kana kula share gareynaya laakiin wadooyinkiiba hadday xidmaan taasoo keenaysa marka hore inuu de qofkiiba arkin in adeerkii ka badan ama de kuwa la qabiilka yahay dad ka badan inuuna arkayn inuu de markaana dadkii xitaa psychologically maskaxda laga xirayo ani waxaan aaminsanahay madaxweyne walba marka la dooranayo in lagu qasbo wadooyin in la dhiso hadda Soomaaliya gaariga ka baxaya qof walba uu og yahay gaariga waxaa la rarayaa ilaa muxuu ahaa waxaa la rarayaa ilaa salaamada maaragtay ya bay dhaafaysaa marka gaariga isagoo saas u leeyahay ma dhaqaaqi karo wadadii waa jajabsan tahay wadadii kaliya hadda muxuu ahaa burco iyo hargeyso ilaa muxuu ahaa oo kale marka la aadayo laascaanood oo kale jidkeedu waa dhisan yahay baa lagu oranaya halku ka dhisan yahay waxaa lagu daadiyey muxuu ahaa maxaa la dhahaa dhagaxan inta lagu daadiyey baa waxaa saas loo mariyey quruurux baa saas loo mariyey lacagtii xitaa wadanka dowladdu ay samaysan lahayd waxaa qaadanaya kambaniyaa loo dhiibaya kambaniyada yaa iska leh waxaa iska leh muxuu ahaa dadka dowladda ku jira ayaa iska leh wasiirada ra'iisul iyo waxaasaa iska leh qandaraaska annagaa saxiixanayna quruurux bay ku daadanaya markaas waxa lagu leeyahay waa lagu dhiso dadkii markaa saas ay u kala xidhan yihiin marka ilaa wadananimo timaado ma jirto waxyaabaha dawladda ay qaban karto oo dadku qaban karina wadooyinkaas ka mid ah dawladda in ay dawlad walba lagula xisaabtamo wadooyinka inay dhisaan oo madaxweynaha lagu doorto hadduu labada sano ugu horeysaba hadduuna wadada dhisin in lagu mudaharaado si uu dee u arko dadka inay dad soo jeeda yihiin inay hurdin
ay marka wadooyinka waa qarash badan weeye I don't think inay dadku awoodi karaan inay wada dhisaan laakiin ama NGO-yo loo tago oo dawladaba laga tago NGO-yo koleyba tuugsin naguma yaro caan baan ku nahay NGO-yo la dhowro kaalay wadooyinka noo dhisay dawladda u taag weyne laakiin dadku hadday soo baxaan oo daamirkii lasoo iibsado ay dadku ay yidhaahdaan intii la odhan lahaa nin wasiira muxuu ahaa company uu leeyahay wadadan ha dhiso ama muxuu ahaa baarlamaanka nin ku jira ama dad dawladda ku jira oo benefitkii iyagii baa qandaraasyada qaadanayaan dhibaatada jirta waxaan kuu sheegayaa iyagii baa qandaraasyada qaadanaya hadda xitaa madaarka weyn ee Hargeysa iyagu ma qandaraasyada qaatay dad bal kala lagu yiri waa lagu keena lagu dhiso aqal buu u eg yahay basically I'm not saying it negatively but laakiin waxaan sheegayaa waa okay but laakiin way ka qurux badnaan lahayd haddii lacagta dad kala qandaraasyada la siinaynin oo la oran lahaa shacab weynaha la oran lahaa iska wax u geyso kala ma garanaysa hadda wasiirka madaxweynaha Somaliland wuxuu ku dhisana qoy qandaraas madaxtooye cusub oo dhisay yaa u dhisay mataqaanaa askartii baa soo baxday oo dhistay ma garatay iyaga waxa uga baxday sibirkii iyo waxyaalahaas kale iyo marka wixii way ka jabayaan bal laakiin haddii aad tiraahdo waddankiyo horumar baan rabnaa inaan gaarsiino laakiinse waxaan rabnaa sidan wadamadan hore maray iyagoo dhaqaalahoodu dee bilyamaad ay gaarayaan anaguna oo milyamaad ay gaarayaan waxaan rabaa intii yarada soo galaba qandaraas mid walba qandaraaskan ku saxeexanaya waa dhibaato weyn may tabarteen ina ogaano waaye that's why aan u leenahay waddankeena dhalinyarteena baa wax u qaban karta in dhalinyarta lagu booriyo inay maaragtay waddanka markay wax ka bartaan ee waddankood dib ugu soo noqdaan hadda adamay ku dhahaa ninka Kenyaanka sabuul markuu jaamacad ka soo baxo waddankiisa wuxuu dhashay hadduu shaqo waayo sabuulka ku jubaa يعني wadannimadu bay ka mid tahay waxaan oo dhan wadannimadu bay isku soo biishubanaysaa dadkeena lama wada sixi karo laakiin dawladda ayaa mas'uulka ah jidadka haddii dawladda musuqmaasuq lagu arko in loo dhiibo habar baa waxa laga hayo waxay tir argaal gaal iyo madam awgaalkayga cadda in gaalka cadda loogu dhiibo oo bal isaga wuxuu doonaa ka qaate waxbuu dhisayaa marka in dadku ay isku talo iyo isku maskax iyo isku maaragtay noqdaan isku idea ba muhiim ah qofka Soomaaliga inuu qofka Soomaaliga maaragtay uu isku baahi yihiin wadada inay naga wada dhaxayso beerta inaan wada falanno in aan maaragtay wax walba isku baahannahay ba muhiim ah dhalinyarta lagu dhiirigeliyo war wadankeena aan ka shaqaysano dawladana ay maaragtay jidadka u sameeyaan dadka waa jidadka way qarash badan yihiin wadankan aan ku noolnay qaniga aba jidka ka boqo wax yar burashtaas u marmaraya samarka markay tahay jidadku aad bay u qarash badan yihiin ku soo orad ma aha laakiin u baahay caga fi u baahay wax saas loogu diisay u baahay Soomaalidu kama ba istaagayso saas u maray jidkii qoyan gaari soo martay inay saal qaadanaya haye laakiin waxaad oran lahayd dawladda ha soo iibsadaan qalabaadka dadkuna shacabka xoogooda ha ku caawiyaan sidee jidadkan loo dhiso wadankeena wax tahay waayo ninka markuu la baro oo baranayo in engineer markuu baranayo wadamadan sanad baa xitaa dadku iyo 2 sano iyo dadku waa lagu shaqeystaa practical baa lagu shaqeystaa systemkaas oo dhan deega waxa wanaagsan inaan ka qaadanay ahayd wadamadan waxa wanaagsan waayo 2 sano isaga practical ba haduu ugu shaqeeyo de biruuxda adduunka kale u shaqo tagaya uu barto wadankiisa ku barto si wax ugu dhisayo ma fahanti waxyaabahaas oo dhan baa loo baahan yahay qofka hadduu engineer baranayo in dawladda kale ay ka faa'iidaysato sanadkaas ama 2 sano practical ahaan loo siiyo jidadka lagu dhiso caafimaadka ay ka shaqeeyaan wax walba dee maaragtay loo sii maaragtay xoogga dadka looga faa'iidaysto qofkiina uu ku barto isaga wax practical dee inuu wixii qaban karo uu ogaado inuu wixii kuma shaqeeyay moogtahay markiiba dad baran dadka xitaa dhakhaatiirta xitaa residence bay u sameeyaan wax walba ood qaadanaysid oo aad rabtid inaad ku shaqo tagtid sanad bay leedahay ama 2 sano practical oo aad shilin ku qaadanaynin oo iska xoogaaga ama wax yar baa lagu qorayaa dee aad ku munaafacato ma garanaysaa wax lagu qoraysa laakiin ma badna meel badna marka hadda waxaan rabnay inaan soo xidhno showga maxaad ku gunaanadi lahayd
waxaan ku gunaanadi lahaa in maadooyinka iskoolka lagu soo daro in dadku waddankiisa wax ka qabsado dadka bokiska laga saaro aakhira daaqada looga furo layiri sida u shaqaysa inaad beri dhibanayso in lagu soo daro u shaqaysa sidaad weligaa noolaanaysa oo kale dhalinyarta maaragtay la baro waayo qofka bini'aadanka waa waxa la baro waayo meesha dadka bini'aadanka way bokiskii lagu geliyaad ku dhex jiraysa